Hogan 24 Media ka dhigo wehelkaaga. wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah oo wax ka barta dalka Urdun kuna soo koray diin la'aan iyo inuusan Ilaahay aqoonsaneen. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu isugu yeeray ardaydii isagoo doonaya inuu ka weeciyo wadada xaqa ah ee Islaamka. Wuxuuna ku yiri, haddii Ilaahayga aad aaminsantiin uu yahay mid jira, hal saac kadib nafta ha iga qaado. haddaba intaan u gudagelin fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe saar gabalaalkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya hele barnaamijyadeena. hana hilmaamin inaad la wadaagtid asxaabtaada adigoo sheer garanaya muuqaalkan. mahadsanid. intaas kadibna waxa uu fiiriyey saacaddiisa isagoo daqiiqadihii tusinaya ardayda isla weynina ay ka muuqato, balse waxa uu wakhtigii socdaba waxaa la gaaray saacaddii uu ardayda u sheegay, welina ma uusan dhimanin. waxa uuna mar kale yidhi, waad u jeediin soo maahan in Ilaahayga aad aaminsan tihiin uusan jirin. waxa uuna sii raaciyey su'aal ah, haddii uu jiri lahaa muxuu ii dili waayey? ardaydii ayaa meeshii ku kala tegey iyagoo qaarkoodna ay la yaaban yihiin caqli xumada ninkan haysa, halka qaarka kalena ay leeyihiin Ilaahay ayaa sii deynaya, balse mar un waa uu qaban doonaa Allah subxaana wa tacaala. intaas kadib ninkii ayaa isaguna gurigiisa aaday. waxa uuna guriga ugu tegey hooyadii oo cunto u diyaarisay iyo aabbihii oo sugaya. waxaa durbadiiba lagu yidhi, gacmaha iska soo dhaq, cuntada adiga ayaan kula sugaynaye. balse waxa uu u dhaqaaqay dhanka suuliga si uu gacmaha isaga soo mayro, laakiinse nasiib xumo durbadiiba waxaa laga war helay wiilkii oo istaagga ka dhacay suuliga dhexdiisa, isla markaana nafta ooga baxday si degdeg ah. waxaana loola cararay dhankaasi isbitaalka si baaritaan loogu sameeyo. balse intaas kadib waxaa lagu sameeyey baaritaan dheer sababta ka dambayso dhimashadiisa, iyadoo markii dambe ay dhakhaatiirtu ogaadeen in dhegta ay biyo ka galeen xilligii uu wejiga dhaqanayey, sidaasna uu ku dhintay. bal eeg ninkaas inta ay awooddiisu tahay iyo sida uu iskula weynaa, balse waxa uusan ogeen in Allah subxaana wa tacaala yahay shadiidulciqaab, oo haddii uu ku qabto aanad kaga fakan karin adduun iyo aakhiraba. allow khaatumada noo hagaaji, adaa casiis ahe. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad nagu cusub tahay rukuma channelkeena Hogan 24 Media adigoo subscribe-na saaraya gabalaalkana furanaya si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela barnaamijyada aan soo gelino channelkeena. hana hilmaamin inaad la wadaagtay asxaabtaada adigoo sheer garanaya muuqaalkan. mahadsanid.